kulankan oo ujeedadiisu ahayd taageeridda hanaanka ay u socdaan howlaha doorashooyinka Galmudug gaar ahaan sida guddiga doorashooyinka u wajahayo doorashada kursiga Hob 067 ayay ka wada qayb galeen bahda dhaqanka ee kursigaasi oo ugu horeeya boqor Cabdullaahi Geedi Shadoor siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah musharaxiinta kursiga Hob 067 ee sida rasmiga ah isu diiwaan geliyay isla markaana shalay qaatay shahaadooyinka sida musharax Maxamed Cali Culusow iyo General Cali Caraaye Cosoble Gacmo Dulle odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta ayaa ku amaanay guddiga doorashooyinka Galmudug juhdiga ay ku bixinayaan in musharax walba helo mudnaantiisa waxayna geesta kale ugu baaqeen in cid kasta oo han siyaasadeed ka leh kursiga beesha ay timaado magaalada Dhuusamareeb isla markaana isdiiwaan geliso. Maxamed Cali Culusow oo ka mid ah musharaxiinta qaadatay shahaadada guddiga doorashooyinka ayaa ku hadlay afka bahda kulankan joogtay oo uu sheegay inay ku wada qanacsan yihiin kalsoonina ku qabaan sida guddiga doorashooyinka u maamulayo qabashada doorashada kursiga Hob 067 oo ka mid ah 5 kursi ee ugu horeeyay Galmudug kuraasta golaha shacabka. waa ku qanacsanaa qaabka halka kan wax uga socdaan mar haddii 101 qofood ay joogto mar haddii nala siiyo baajidkii on haysano in musharaxnimada ay nala ogolaado halka nool kaga olgadaado on haysano qaabka ay wax ku socdaan waa ku faraxsanahay kuwaasuna waxaan rabnaa inay haddii ayakuna sidaas oo kale ayakoo ku faraxsan inay iyo yimaadiin maanta loo celshay inay iyo yimaadaan ayakuna ay qaataan haddii alkool baajidka qaataan ayakana intaasaan ayakana leeyahay anaga si wanaagsan oo fiican aan ugu faraxsanahay anagu waxaan ahay musharax kaligayna musharax miyo rag badana musharaxeen ila ah ragga musharaxeen ila ahay waxaan ku galna xaajo xamar waxaan niri kursigu wuxuu yaalaa meesha la yiraahdo Galmudug Dhuusamareeb waxaan rabnaa inaan tagno halkaas ku tartanno ninka alla u guuleeyna oo qaato hadda nimankii waxaan hadda meelaha ka maqmalqaaya oo shirjada ku arkaya Facebookida iyo ku arkaya rag oo dhahay war kursiga waa la boobay war kursiga waa la kufsaday 101 qofooda halka joogta oo kursigaas dadkii ku magacawnay beesha ku magacawneed ka socota waxa halka jooga mas'uuliyiintii beesha oo haddii alla ku ama boqor ha ahaado ama bah kale ha aadan halkay joogaan waxaan codsanayaa horta markii hore ka codsanayaa nimanka xamar dadka ka caayay wararka aan munaasabka ahayn ka sheegaya oo mas'uuliyiinta qaranka gaaraya oo mas'uuliyiinta Galmudug gaaraya inay halka ka yimaadiin ayako haddii alla kursiga ayako ay leeyihiin oo beesha u dhasheen oo lagu qashqashayn oo hadday helaan qaadahayaan haddii lagu helana ay dadka ka helo oo walaalahooda gacanta salaamaan baxaya intaas horta waxaan ugu baaqaya intaas aniga marka waxaan u diyaarahay kursigaas ama ha yimaado ama ha soo socdo ama jidka la soo 3 maalmood waan sugaynay 3daas maalmood waxaan sugaynaa inay nagala qayb galaan doorashada halkan ka dhacaysa inay nagala qayb galaan aan sugaynay 3 maalmood dartooran u xayirayn dadkina haddii alla ku roon yahay guryaha ugu jira 101 qofood guryaha ugu jirta waxaan codsanaynaa hor dadka nimankaas hadday musharaxiinta ay sheegteen ay yihiin inay si degdeg ah ku soo gaaraan Dhuusamareeb ayakoon hal qof oo bilaaadni ama hal qof oo mas'uul aysan aflagaadayn gacmo furan ku soo dhaweeyayna kursigu waa furan yahay reer uma xirro reerkii lahay ayakoo ah inay si degdeg ku soo dhawaadaan oo ku soo dhaweynaan ugu baaqaynaa inaysan aflagaadayn qof mas'uul ama qof wax garad inayna aflagaadayn waa ka codsanaynaa